salaadiin cuqaaliya waxgarad ka soo jeeda deegaanada bariga Burco ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco ayaa waxay kaga hadleen shidaal baarista ka soconaya deegaanada Togdheer iyo Sanaar waxaana kaloo xukuumadda ku taageeran mashaariic kala duwan ay fulisay intii ay talada wadanka haysay sidoo kale waxay beeniyeen warar dhawaan ka soo yeeray qaar ka mid ah salaadiinta bariga Burco oo sheegay inay matalaan waa kuwan qaar ka mid ah xubnihii shirka jaraa'id ka hadlay hadaladoodii dadkan iminka waxaan la yaabanahay oo isweydiin dadka maanta faaraya maxaan ku leeyahay halka waxba lagama qaban karo oo waxba lagama yeelin sameyn karo oo maxaan ku leeyahay lagama sameyn karo wax soo saarkii dawladda ay ku tala gashay lagama sameyn karo ayaa mucjiso horta la yaab leh curiyaan baa eegaya oo la talo goor baa shidaalka la soo saaraya waxa eegaya mid aabihii iyo hooyadiiba waayay oo la yiri shidaal baa soo saaraya isagu soo haray waxa eegaya islaan isle aad xaalada ka noqotido yahuuba la garab taagana cid kasta oo ama mashaariic shidaal ha noqoto ama mashaariic kale ha noqoto ee wadankeena wax gelinaysa taa waanu ka bidaysanahay hadaan beeshana waxaanu kala u sheegaynaa aan farayna qolyahan faraha badan leh ee buuqaya iyo qolyo lagu had iyo goor nagu qaaraanto oo ilaaha gaashaan guurta horta caawa laga bilaabo gaashaan guur wax la ilaaha oo aanu haba yaraatay aanu nahay ma jirto kan odayaasha fadhiya dibad iyo gudabo beesha jiraanba aan hormuudka u ahay ee caaqilkoodii ahay waxaan isugu nimi oo aan iska soo wacyi gelin bariyaha kan waxa ka soconayay Jamhuuriyadda Soomaaliya buuq fara badan oo la leeyahay khayraad badan oo say anagu ama wax qabad aan Soomaaliya aan ka howlgalay dad buuqay oo meel walba ka qaaday oo meesha tan anaga walka kan anaga gurigan degi jirnay oo anaga gurigan aw ku furi jirnay ilaahay loo sameeyay dhulka ma nafacadsana oo khayraadka iyo barwaaqada Soomaaliya xiriirna uu ka dhaxeeyo wixii ganacsiga iyo laba dawladood oo ka dhaxeeyo annagu waxaan leenahay beesha Axmed Faarax beela Faarax waana mawqifkeedu iyadoo aan habar nolol shaqaalay oo inaan nolol shaqaalay haddana raali waxaan ku nahay wax qabadka iyo soo dhaweynta iyo horumarka ay wado kaasaan wax ku leeyahay waxaan dawladda Soomaaliland aan ku Cabdiraxmaan Abraas shabakada caalamiga ah Aynaba News magaalada Burco.